بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: يمين غموس تارك لصلاته، مصل بلا طهر له بتعمد، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد، قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة الظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل اعتدي. وحانو كل حجرني كتاب كني منظومة الكبائر للحجاوي، كبيروينكا ذنوبتا واوين كهدليي. marka waxaynu soo aragnay ilaa 17 kabiiro ayaana duruusteennii hore kaga soo hadalnay. labadan beeyda ugu horeysa musannifka wuxuu ku sheegayaa 6 kabiiro oo kabaa'irta waaweyn kamid ah, dunuubta mideeda waaweyn kamid ah ayuu ku sheegayaa. marka wuxuu leeyahay naadimka raximahullahu: min alkabaa'iri yamiinun ghamuusun. yamiinun ghamuusun tan waa mubtada khabarkiisu uu go-an yahay, oon soo qadaranayno leenahay min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah oo kabiirada ah oon tacriifteeda hore u soo sheegnay. yamiinun dhaar baa ka mid ah, yamiinta oo ghamuusun faajira ah, yamiin faajira ahoo saaxibkeeda oo been ku dhaarto, taa ayaa ka mid ah. waa yacni kabiiradii maxaa la yidhaahdaa 18 weytan. taarikun lisalaatihi waxaa kaloo ka mid ah wa taarikun lisalaatihi. dunuubta waaweyne kabiirada waxaa ka mid ah taarikun mid ka tegey lisalaatihi, salaadiisii maktuubada ahayd ee faradka ahayd ka tegey weeyaan isagana dembi weyn oo kabiiradii ka mid ah. musallin bilaa tuhrin. musallin wa musallin wa salaatu musallin, mid tukanaya salaadii baa ka mid ah bilaa tuhrin, wayse qabid la'aan ku tukanaya, daahir la'aan ku tukanayo, lahu ay lima sallaahu, wixii uu tukanayey ayuu wayse qabid la'aan, tahaaro la'aan ku tukanaya. weliba muxuu ugu tukanayaa? bitacamudin, bisababi tacamudin lidaalika, qasad uu qasdaayey ula kac isagoo og inuusan wayse qabin u tukanayo ayaa ka mid ah weeyaan. waxaa kaloo ka mid ah dunuubta kabiirada ah musallin bigayri lwaqti. musallin ay wa salaatu musallin, mid tukanayo salaadiisii ayaa ka mid ah oo uu ku tukanayo bigayri lwaqti, yacni bigayri waqti salaa. salaada waqti bay leedahay ay soo gasho ayna ku eg tahay, waqtigeedii waqti aan ahayn midka tukadaana tukashadaa salaadiisu waa dunuubta kabiiradaho waaweyn bay ka mid tahay weeyaan. aw gayri qiblatin, aw salaati musallin, aw salaatu musallin, mid tukanaya salaadii ligayri lqibla, yacni gayri qiblatin ilaa gayri qiblatin, qiblada meel aan ahayn. ilaa hadda shimaalkay naga jirta ay waqooyiga koonfuruu u tukaday isagoo qasd u tukanayo, kaasoo kalena oo qasad ugu tukaday dembigiisa waa dembi kabiiraa weeye. kan lixaad ee beydka ugu dambeeya waxa weeye musallin wa salaatu musallin, mid tukanaya salaadii ku tukanaya bilaa qur'aanihi, qur'aankiisii almuta'akidi, yacni ee adkaa, yacni faatixadiyaa loo jeedaa. faatixa la'aan qof tukanayo, salaaddii buu tukani, salaada qiraa'ada muta'akidka ahi, qur'aanka muta'akidka ahi waa faatixadii wey. faatixa la'aan buu tukaday, kaasna dunuubta kabiirada ah ayay ka mid tahay wey.
marka lixda kabiiro ayuu musannifka labada bayd noogu sheegay kan koobaad waxaan iri waa yamiinul ghamuus dhaarta qofka been oo ku dhaarto kan labaadna waa qofka salaadii faradka ahayd ka tago bila cudrin cudur la'aan uga tago kan saddexaad waxa weeye qof weyse qabid la'aan tukaday asagoo og inuusan weyse qabin haddana salaad tukaday yani ula kac u tukaday weeye kan afraad waxa weeyaan qof salaada waqtigeedii oon la gaarin tukaday oo maalan yani salaada casar la joogaa qoraxdii ba halka taalo markaasuu wuxuu leeyahay maqribkan hadda tukanaya maqribkii buu tukaday lama gaarin waqtigiisii kaasoo kala baa kamida kan shanaad waxa weeye qof qiblada mooyee meel kale u jeestay salaadiisii asagoo qibladii yaqaan oo og inay tahay jihadiisii ay tahay inta ka leexday meel kale u tukaday asagana waa dambi kabiira weey kan lixaad oo ugu dambeeya waxa weeyaan waa qofka isagoo faatixadii yaqaan oo garanayo qasdan inta uga tagay yiraahdo ani wax kale aan ku tukanaya faatixa ku tukan maayo lixdaas ayuu musannifka meesha noogu sheegay weey wuxuu u hormariyay yamiinun ghamuusun waxa la yiraahdaa yamiinul ghamuus wa al yamiinul faajira yamiinta dhaarta beenta ah weeyaan culimada marka laba yamiinta ghamuusada ah laba macnaba way ku sheegaan waxa weeyaan يعني ومدة يمين الغموس وحال يرهدا دارت عاد حق دتك لأيليهين أو قف مسلم ليه أتكو قوسانيسو معناها غموس كالي يرهدا ويكوفا سيران ويا أما يعني كلا بعض يكوفا سيران وبنت هذا أجئنا بين شيء هذا أنا أكو دارته يا ذنب بحق مسلم بكو قاضين هذا رتدي هذا بين شيء أجئنا بين لوتاي haddana inaad dhaar ku ayido labada macnaba way ku sheegaan labada macnaba waa lagu sheegaa maxaa yamiinul ghamuus loogu bixiyay yamiinul ghamuus waxa loogu bixiyay li'annaha taqmisu saahibaha fi al-ithmi thumma fi nar jahannam qofka saaxibkeeda ah ayay dambi dhaxgelinaysaa dambi dhaxtiimbinaysaa ka bacdina naarti ilaahay oo jahannama ah ayay gaarsiinaysaa wal ciyaadu billah marka arintaas ayaa yamiinta ghamuuska horta taariifteeda iyo aqsaamta ay leedahay sidaas ku sheegaan culimadu weeyaan ama ha noqoto mid maarata xaq muslim lagu goosto ama mid been aad u qasaday oo ku dhaaratayba haba noqotee yamiintaas yamiinul ghamuusa la yiraahdaa labadaba waa lagu tilmaamaa maxaa yeelay qofka xaq muslim ku goosto يعني دار أو بين كل دارته كل جوستاهي وحوى دتك إلهي سبحانه وتعالى أو عراضبه كمديان كبيرة أنا ما حنكون سوى شيء ووحل مركي شيء أو سمايه قفك مركو سمايه ذنبي أو قلا إما إنه حد ليه أدونك مثلا وسارق عنتها لقوي وزاني ولا كرباشي وهكذا أما إن لقو ختمه محل يرهذا وعيد شديدة نار بولية لعنة بولية عراء إلهي بولية وحي اللي يراهدو ذنوب تاسا كبائر اللي يراهدا حديث كإمام مسلم في صحيح كسقنا حديث أبي أمامة نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان قفك دارتو دارنا كل دارتا سي أو حق مسلم أو جوستو أو حقه سن لحين أو كقاته والله بالله طلع أنا إسكالبوير ساسو كلو كدارتي قف كاسي لقي الله وهو غضبان ما أنت قيامه إلهي بقول لك كل ما الله عريسا بقول لك كل ما مركز الصحابة إنك ميذو حكيري وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله هذا الشيء عن أو حقك قادنا إياه وحير أو يهي كورن حقا يرحتا هذا دار كقاته بينه إلهي مو عرانيا سؤال سويدي نبي محوك جواب عليه الصلاة والسلام وإن قضيبا من أراك هبا هذا وإن كان قضيبا من أراك هبا النقضة عضي لانتيس عضي قال له عضيسته لانتيس بحق درها كو قوسته ذنب قاس وذنب كبيرة إلهي أكتيسنا وحويان
asagoo rabbi wuxuu kula kulmayaa allah u caraysan ayuu qiyaamaha la kulmayaa weeyaan xadiidkii cabdullaahi bni cumar oo imaamu albukhaarina fii saxiixii uu ku warinaayo waxaa lagu daraa dunuubta waaweyn inuu ku jiro bal waxaa lagu xijiyaa yacni qatlu nafsiga lagu xijiyaa xadiidka ibni cumar wuxuu leeyahay oo imaamu albukhaari fii saxiixii ku soo saaray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi alkabaa'iru alshraaku billaah dunuubta waaweyn waa allo khalqigiisa wax loogu daro cibaadadii alla lahaa oo dad kale lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayn labada waalidoo lagu caasiyo aabbiyo hooyo awoowe iyo ayeeyo ood ku caasido waa cuquuq waa dembiga weyn weeyaan kan saddexaad wa qatlu nafsi naf ilaahay kaa xarimay diliddeeda la dilana yacni waxa weeye oo dhiiggeeda la daadiyaa waa dunuubta waaweyn wey markaasuu ku daroo yidhi walyamiinu lkhamuusu dhaarta saaxibkeeda dembiga maarata dhex gelisaahi ayadana waa ka mid buu yidhi waa taas weeyaan marka dhaartaas dunuubtaasi yamiinulkhamuuska waxa weeyaan waa labadaas macnay culummadu ku sheegeen weeyaan labadaas qowl bay leedahay ama ha noqdo xaq muslin oo gardarro ku qaato ama mid uu been ula qasdayba haba noqoto hadday doonto waxa weeye dembigaas kabiirada dunuubta kabiirada waaweyn ayay tani ka mid tahay weeyaan dunuubta waaweyn oo kabiirada ayay ka mid noqonaysaa imaamu dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir wuxuu ku leeyahay wasaxa tagliidu ismi alxaalifi kaadiban bacda alcasri wa cinda minbari rasuuli illah sal alla alay wasalam weliba dhaarta markay sii xooga badan tahay salaad bacda alcasr oo kale nusuus xoojinaysaa jirta bacda alcasr haddaa dhaar beena ku dhaarato dhaar beena aa ku dhaarato waxa weeyaan dunuubta kabiirada teeda waaweyn bay ka mid tahay kumana sii jirta haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisii mimbarkiisa qofka markii lagu dhaariyana kumaba sii jirto weeyaan kuma sii jiro dembigaas waa dembi aad iyo aad u weyn weeyaan marka dunuubta kabiirada ah waxa weeyaan waxaa ka mid a yamiinulkhamuuska waa dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay dunuubta waaweyn oo muxaramka ah ayay ka mid tahay waay waana midda uu nabiyullaahi moxamed xadiidka abu dar oo imaamu muslimna fii saxiix uu ku soo saaray oo tilmaamay oo yidhi alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex qof ilaahay maalinta qiyaamaha kalaam raxmad la kulama hadlo walaa yusakiihim mana tahiro walahum cadaabun aliim cadaab xanuun badan oo mu'lim ahna waa ay leeyihiin markaasuu tiriyey saddexdaas waa kuwe almusbilu isaarah waalmannaanu waalmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadib waxaa waye qofka musbilka ah maradiisa dhulka dhigo oo dhulka ku jiido surwaaluu wataa qamiisuu wataa dharbuu macawis buu wataa anqawgu ku hoos mariyo dhulka ku jiiday musbil baa la yidhaahdaa marka kaas ilaahay la hadli maayo kalaam raxmo ah mana tahiro cadaabna ilahay agtiisa ku leeyahay buu yidhi kan labaad almannaan wey qofka markuu dad sadaqo siiyo ama wax un dhiibo dadka ku mannaysto yidhi sotaan waxaa kuu yeelay sotaan waxaa ku siiyey oo ku galladaysanaya maalin walbaba leeyahay anaa waxaa kuu sameeyey mannaana la yidhaahda waa qof mannaysi badanoo galladaysi badanoo yacni yidhaha anaa wax kuu galay allah baa mannaan ah marka kaasna waa midka labaad waay kan saddexaadna waxa weeye qofka bac mushtariga tijaaro ku jira dukaan buu leeyahay waxba u uxayo tijaaro u furan markaasuu badeecadiisii wuxuu ku gadayaa been dhaar been ah buu ku gadaa wey wuxuu ku socodsiinayaa almunafiqu silcatah badeecadiisii wuxuu ku socodsiiyaa bilxalifi alkaadib waxaan jirin wallaahi ana intaa ka soo baxshuu leeyahay asagoo waxba aana ka soo bixinin wallaahi noocaas meel hebela laga keenay buu le iyadoo been tahay markaasuu dhaartii alla kula dhaaranaya marka dembigaas waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabiirada ah ayay ka mid tahay weeyaan culammada waxay ka hadlaan yamiinulkhamuus kafaaro ma leedahay mise ma laha kafaaro ma leedahay mise ma laha daahirka xadiidka wuxuu tusinayaa wax kafaaraa inuusan sheegin kafaaro gud ma laha kafaaro ma leh waana jumhuurta ahlu cilmiga sida ay ku tagaan waxa weeye imaamu maalik oo kaleeto imaam abu xaniifa imaam axmed qowlkiisa mashhuurka ah kulli waxay leeyihiin dunuubta kabaa'irkay ka mid tahay sidaa darteed maadaama kabiiro ay tahay
lagama rabo kafaaro gude qofka markuu sidaa dambiga uu galaa toobo baa laga doonay inuu ilaahay u soo noqdo ayuun baa laga rabaa beelay toobadaas ilaahay kaga tirtiraya sidaas ay leeyihiin maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay laa yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman marka qolo sidaas ay leeyihiin qolada labaad waxay leeyahay yamiinul ghamuus kafaara ay leedahay kafaara la rabaa inuu qofku la yimaado waana qowlka imaam shaafici iyo riwaaya can imaam ahmed ay makala sida imaam al-awzaa'i ay ku tageen ay makala ay ku tageen ay leeyihiin walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman markaas ay fa kafaratuhu إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة آيداس إلهي وكجاه الله سبحانه وتعالى لكن وحل يرهذا قولك جمهور تأي علماء الرجحان محايل إذا الدليل أي حق بدن تهي أو إن أي تهي أن ذنب كبيرة توبان قفك أوبا هي كلي أي تلمام ميسا متكاس أي الرجحان ويا قول كاس علماء الرجحان يمين من الكبائر وحكمد يمين دار أو غموس صاحب كده الدنب دحقل سبا كمد أهويا ذنوب كبيرة ذا أي كمد تاي تنكوباد واتاويا تارك لصلاته مد لبعض كبيرة ذا لبعض ماشي وكش يقول لحظة أهي وتارك لصلاته يعني قف صلاة دي سكتجي صلاة دي واجب كأهي تكتجي صلاة التعريف تذوى تقانان والدعاء بالي هذا الدعاء بالخير قفك خير وإلهي مارتي لغبر يدعاء أيا لغو مقعابا حق اللغة اللي يرهدا حيا لي قرآن كمركو قال لي وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ادعوا دعاء أيا لو جيدا ويا مركا حق الشرع قنوات قرن إنسان وحل يرهدا الصلاة وحي يرهدا وعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إذا وعبادة ككوبا وحلقوا هذا أقوال لقوا هذا وحلا أخريه فعل لسمايه أو ليقانه أفعال لسماينا يحبناها لقى سمايه الله أكبرنا لقوا بلاوضه سلامتنا السلام عليكم الله قبحه أي لقوا تعريف يا ويا صلاة داس مركا إلهي با واجبيي منزلة إلهي ذهين وانقرنينا وبعد الشهادتين لا إله إلا الله مركو يراه محمد رسول الله ركن قال هذا من أركان الإسلام صلاة كمدة صلاة دي بكمدة هويا أهمية ذا وحتصيه أحكام تكلا سيد الصون كيزكذا إيه نبي يقول لك جوجال إلهي كسو دجي الله أمري أما صلاة ولا الرفعية النبي عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات أيال لقي مركا هل كاس أيو إلهي كسو أمري أيضا كنت صلاة ذا مركي دمبنا سيد حديثك مارة البخاري هي مسلم بكسوغن وحويان أو تلماميه حديث الإسراء والمعراج وحويان إلى 5 صلاة أو كنت كي صلاة أجري قودي له لقى صور ريبه وحال قرن إنسان قيمها أي لذها بكتوس يساويا أهمية أي لذها صلاة هبين إيمالين ومدة شنجر صلى الله بتويا مركا وحي توسيسا إني واجب تهي عد كستا أو مكلفة أو عاقل مارتي أو حقرنا بالغة إني واجب كتهي أيان قرني ناويا صلاة داس وصلاة داس إلهي أفرض لي سبحانه وتعالى وين لفظ القرآن كمركات تريسد صلاة لفظ الصلاة مركا اللي يرادو أما أيضا وحلا حيرت الزكاة اللي حيرته أما أيضا مفرد وكل يده مركي اللي تريه إلى لحدا جير كبدا أي قرآن كسو الله بتاويا صلاة سيدان أقنا هاي والصلة بين العبد وربي وأدونك إي ربي إيسا حريرك كد حيوي مركا إنو آد لو إلاليو أي تسي ساويا صلاة مركا هدو قفو كتغو حكم كيسو محو نقونيا قفك صلاة كتغاهي ما مسلم با مسوا قالوا بيان علماء مسألة ذا اسكو خلافة لكن وحيسن اسكو خلافين أو أي متفق كويهين هشيسنا كويهين قفك صلاة فرض نمذي ذا ديدو أو يراد وح صلاة واجب تلما أركو صلاة واجبة مجر تهدو يراد أو فرضية ذا أو إنكراه واكو كفرنا يا وحويان
كافر بو نقونا يا ويان إلا إنه عذر دار ليه هاي مويه عذر دارك أو يالن كراهوا محي وحوي حد وصو إسلامي والدين كي ما بيقام أما يعني وحويان مسلمين تدحدوا ذبا سووا لا إله إلا الله ويركلي محمد رسول الله بونا مسلمين تيبوا كسر دحدق من ما بيقام بالدين توحبك ما قرنايو ما دح قليل مسلمين تي مركا قف كاسي هدوب فرضية ذا واجبني ماذا أو إنكرا عذر دار كاسنا أوسن لهين ويعني ومتفق وخلافه نحتاج علماء مجره نكا إنه مارت كافر يهي وحشكي وكجرا ملها وحشكي وكجراه مله ولذلك يعني وحل هذا من جحد وجوب الصلاة أو خصلة من دعائم الإسلام الخمس كان مرتدا يعني وحوي قفك معلوم من الدين بالضرورة صلاة حكم التهي وحل هذا المعلوم من الدين بالضرورة لهذا شيء قفك استكل يوم قرن مسلم وفهم يويان مركز شيء قاس إن لقت تجاهي وردوا نقنا قال لي مو نقنا يويان وحصاهر مسألة ذي علوم اسمه خلافان تعال اسمه خلاف هذا وجوب كإنكره صلاة يقوم واجبية قفك مرتد واي وحوي رد لو دليا هدي شرع إسلام أي جرته وحوي لقوته كان ماي جنازة دي قبورة مسلمين تلقوا آسمايو قبر مسلمة لو جورين مايو إسقى ضدك أو دلي أما إسقى دلي مسلمين تأسلح مايان وحكت بحين يمر ومرتد ويان ساسو نقنيا وهدو يراد صلاة يقوم واجبين وين أما صلاة هدو أوجتهجو تكاسل أوجتهجو تهاون أوجتهجو أسكف الضيستي عاجز أوجتهجي لكن وقرسيه صلاة إني فرض تهاي واجب تهاي صلاة واجب لكن إن شاء الله وتكنايا أما مر أنت تكذو كتجا هي وحي لمد أهويان كام مرك حكم كيس محون قنايا ما قال بامس ومسلم ما مرتد با ودين كي مكبحي مسمعها أي علماء كدودان صدح قول أيو مارت شارح سو جورينيا صدح قول إن علماء كوكلا تجين أيو سو جورينيا قولك وجهر يا وحوي قفك تارك صلاة كاهي وقال وح أو صلاة بهدو كتج حتى عاجز أو كتجو كسلها أو كتجو هل صلاة هدو كتجاهي وكو كفرنا يا إسلام نمذنا وحو حد كليه ماله هدي شرع الإسلام كأو جرنا ولا ديري لك وحنا لو ديريا مرتد نما لو ديلا بيلين حد لو ديلي ماي حد أهان لو مديليه رد لو ديلي ياوي محايا لي وحو كتجي شيء معلوم من الدين بالضرورة أيو كتجيوي هذا الكاس إمام أحمد بن حنبل في أصح روايتيه لبدي يسر روايات مد وصحيح حسن أيو كتجيويا وحون الدليل فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة ضيعاتي بكم التهيبولي وحكروا الدليل شنيان صحابة رضوان الله عليهم اسكما أيام خلاف قف لقصوا وريان مجروا إن قف صلاة كتجي أو مسلم يهي اسكما أيام خلاف وحيو أركي جيرين كفر بهدو جيرو صلاة أو لقتها قفك وكتجي بأركي جيرين أثر كاسنا وحويان إمام الترمذي أي في سننه كسو صاره وأنا يعني أثر كعبد الله بن شقيق وإمارة وحوليه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أصحابتي سوحي أهايين لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير صلاة صحابة النبي لما أنتود وحي أهايين كوا آنان أركن شيء عمل كلا سماية كم إذا كتجستيسا إنه كفر يهي صلاة وحنا هين صلاة لكن وحي أركي جرين إنه كفر التهي قفك كتجو ساسولية لكن أعماش كلا وما أركي جرين إنه كفر التهي صلاة قفك كتجس إنه كافر يهي أي أركي جرين أثر كاس صحابة ذا أو حاكم إذا عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل أبو هريرة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس جابر بن عبد الله أبو الدرداء وغيرهم انت سوم الصحابة كم إذا أي أرنتا سكوتك تيويا وح خلافه نحذو ذي لنا مجرو أي ماذا التابعين تنا حسن البصري با كم إذا عبد الله بن مبارك با كم إذا إسحاق بن راهويه كم إذا يعني دت ترى بدن
ayaa mas'aladaas ku tagay oo qabo hadduu qofku salaada hal salaad ka tago inuu ku kufrinaayo waxyaalaha ay daliishadaan aayadda fi suurati tawba ku jirto fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaa fa ikhwaanukum fi ddiin ilayhi aayaddaas allah baa odhanayo hadday toobo keenaan oo salaadii ay oogaan oo zakada gutaan waa walaalihiin xagga diinka walaalo idinkugu yihiin mafhuumka marka laga qaadanayo mafhuum almukhaalafa la yiraahdo aayadaasi hadii aynan salaada oogin zakadana aynan gudanin falaysu ikhwaanun lana walaalo nooma ah falaysu biikhwaanin lana annaga walaalo noo noqon maayaan weeyaan marka hadii walaalnimadii mu'minnimadii la anfiyay loo diidayna wuxuu ka mid yahay qofkaasi kufaartu ka mid noqonayaa bay leeyihiin weeyaan waxay daliishanayaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni xadiidka jaabir ibn cabdillaahi oo imaamu muslimna fii saxiixii uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bayna alrajuli waalshirki waalkufri tarku الsalaa bayna alrajuli wa bayna ashirki yacni kufriga iyo shirkiga iyo qofka waxa u dhaxeeyahay waxa weeye waa tarku salaa salaad hadduu ka tago marka kufriga ku dhacaya shirkigii buu gelayaa weeyaan xadiidkaas way daliishanayaan imaamu muslim fii saxiixii uu ku soo saaray waxaa la mid ah yacni maaragtay isagana xadiidka burayda oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum الsalaa faman tarakaha faqad kafar xadiidkaasna way daliishanayaan alcahdu aladii baynana wa baynahum ballanta annaga iyo dadka noo dhaxaysa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa asalaa salaadaasa cahdigeenna iyo ballankeennu uu yahay faman tarakahaa qofkii ka tagaahi faqad kafara qofkaasi waa gaaloobe buu leeyahy xadiidka imaamu axmed fii musnadihi ku soo saaraa imaamu tirmidi nasaa'i ibnu maaja a'immadaasoo dhan way soo saaraan weeye adiladaas ayay maaragtay ay daliishanayaan waxay leeyihiin hal salaad qofkii ka tagaahi macluum min addiini bidaruura buu ka tegey sidaa darteed waa kaafir waa murtad diintii wuu ka baxay haddii la dilaayana xad loo dili maaye waa la dilayaa bay leeyihiin laakiin waxaa loo dilayaa maaragtay riddaa loo dilayaa weeyaan qowlka labaad waxa weeye waxay leeyihiin mar hadduu takaasul uga tegey tahaawun iyo fududaysi uu uga tegey salaaddii laakiin uu qirsan yahay salaadan inay waajib tahay waajib inay tahay uu qirsan yahay kuma kufrinaayo laakiin wuxuu noqonayaa maxkuuma bifisqihi faasiqnimadiisa la xukumayaa bay leeyihin waa faasiqnimadiisa la xukumaya hal la xukumee waxa weeye salaada tuka baa la leeyahay hadduu diido uu tukan waayo waa la dilayaa laakiin loo dili maayo kufri loo dili maaye xad ahaana loo dilaya de maalan yacni qofka qof dilo qisaasta marka la qisaasayo gaalnimo looma dilo waxaa loo dilaa xad ahaan baa loo dilaa waa xad weeye xadulqisaasa loo dilaya kaa oo kale buu la mid noqonayaa bay leeyihin laakiin wuxuu noqonayaa maxkuumun biislaamihi islaamnimadiisaa la xukumayaa laakiin waa faasiq weeye ee gaal ma noqonayo madhabkaas imaamu maalik iyo imaamu shaafic ayaa ku tegay iyo riwaaya can imaam axmed ibni xambal ayaa ku tageen riwaaya cinda alxanaabila la yidhaahdaa sidaasna waxaa dooranayo abu batal maaragtay sheekha la yidhaahdo abu cabdullaahi ibni bata ayaa dooranayo oo wuxuu leeyahay yacni in wuxuu inkirayaa in la yidhaahdo waa kaafir uu diidan yahay markaasuu wuxuu leeyahay almadhabu calaa haada lam ajid fi lmadhabi khilaafa madhabka ay ku tageen culammadu waa sidaan hadda aan soo sheegnay inuu faasiq yahay laakiin uusan kaafir ahayn laakiin laba gooraba waa la dili xad baa loo dilayaayo gaalnimo loo dili maayo iyo riddo loo dili maayo walam ajid fi lmadhabi khilaafahu ma aanan ku arag buu leeyahy mana helin wax khilaafsan ma aanan arkin buu leeyahay marka culammadaas marka waxay leeyihiin waxay maaragtay odhanayaan aayaddan fii suurati tawba ku jirto faida insalakha alashhuru alxurum fاqtuluu الmushrikiina xayثu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcaduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu الsalaaةa waaatuu الzakaata fakhalluu sabiilahum aayaddaasay leeyihin waxay tusaysaa yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu amray mushrikiinta dilitaankeeda la dilo wuxuuna ku xiray
yacni dilkooda oo laga joogsado haddii arrimo dhowra la helo atawba min ashirki baa la helay iqaamu salaa baa la helay iitaa'u zakaa baa la helay intaas baa la helay mar hadduu salaadii iyo zakadii iyo intaba markuu mushriga la yimaado shirkigiina uu ka toobo keeno salaadii iyo zakadiina uu la yimaado inuusan maaragtay aan la dilaynin oo fakhallu sabiilahum ta ilaahay leeyahay yacni faraha ka qaada iska daaya hadilina la leeyahay ayay yacni taasaa tusaysa bay leeyihin markaasu waxay yidhahdeen wa binaa'an calayhi fa ina man lam yuqim asalaata yastaxiqu alqatla qofka aan salaada oogin dil buu mutaysanaya wain kaana taa'iban min ashirki shirkigiiba markuu ka toobo keeno hadduuba shirkiba ka toobo keenay laakiin salaada uusan tukanin shirki loo dili maayo kufriye xadnimaa loo dilayaa halkaasay ay deliishanayaan waxay deliishanayaan oo kale yacni maaragtay xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim bay soo saareen xadiid cabdillaahi bni cumar uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wayuqiimu asalaata wayuutu zakaa faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum ila bixaqi alislaam wa xisaabuhum cala allah xadiidkaas waxay leeyihiin wuxuu daliil u yahay cismada dhiigga qofka yacni inay cismadiisa dhiiggiisa in la badbaadiye inay ku xiran tahay saddex arrimood annutqu bishahaadatayn shahaadateynka uu la yimaado hadduu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah yidhaahdo macsuumu damuu noqonaya salaada oo la oogay iyo zakada uu la yimaado laakiin fain takhallafa waaxidun minhumaa lam tataxaqaq alcisma haddii intaas mid ka mida yani midna uusan la imaanin intaa mid ka mida uusan la imaanin waxa weeye macsuumu dam ma noqonaayo marka hadalka meesha ay ka wataan waxa weeye wa binaa'an calayhi buu leeyahy hadalkaas markaynu qabanno haddaan wax ku dul dhisno fa ina man lam yuqim asalaa qofka aan salaadii oogin bal tarakaha ka tagaahi aw ahmalaha ama iska ihmaaliyo iskaga tagaahi yakuunu mubaaxa dam dhiiggiisa miduu bannaanaan yahay buu noqonaya dhiiggiisa oo bannaan yahay ayuu noqonaya sidaa darteed fa yuqtal laakiin xad baa loo dili maayo gaalnimo bay odhanayaan weeyaan inuu faasiq yahay uusan kaafir ahayn waxay u deliishadaan aayadda ah in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay waxa uusan marna dhaafin waa shirkiga wey uusan addoonka u daynin laakiin wixii shirki ka soo haray cidduu doono u daynayaa bay leeyihiin marka maadaama salaada duuna shirki ay tahay oo shirkigii ay ka hoosayso waa taxta mashii'ati illaahi buu qofku noqonaya in shaaa غفر لصاحبه وإن شاء عذبه حضو دون إلهي وأو دمي دافي حضو دوننا إلهي وأو عذاب يابي لي مركز صلاتنا وذنب دون الشرك بأورنا ذنب الشرك كهو سيوي مركز فتدخل تحت مشيئة الله إلهي مشيئة أي سوهز قليسا معناها أي دليشان أيان أحاديث بدن أي دليشان قولك سدحات وحوية qofka haddii uu ka tago salaada fududaysi oo fududaysanayo iyo kasal iyo caajisnimo uga taga hal salaad ba Allah ka dhigay isla markaana inay waajib tahay oo qirsan yahay waxay leeyihiin lana dili maayo kufrigiisana la xukumin maayo lama xukminayo lamana dilaayo gaalnimana lagu xukumi maaye waa la xabisayaa ilaa uu ka salaada ka tukado waa la xiraya laakiin waa faasiq bay oranayaan saasay leeyihiin qowlkaas abu xaniifi asxaabtiisa ayaa qabaan yacni maaragtay raggii salafka ahaa a'immadii salafka qaar ka mid ahna ibnu qayim aljawsiya wuxuu u nisbeeyaa qowlkaasi alimaam moxamed ibni shahaab azuhri iyo imaamu maxaa la yidhaahdaa sayid الtaabiciin oo saciid ibnu musayib ayay u nisbeeyaa iyo cumar ibni cabdilcaziiz iyo daawuud ibni cali alimaamu almusani a'imadaasoo dhan u nisbaynaya uu leeyahay qowlkan ayagaa ku tegey waa la xabisayaa markaa ka bacdi ilaa uu ka tukado salaada fisqigiisana waa la xukumayaa bay leeyihin waxayna daliishanayaan inuusan gaal ahayn waxay u daliishadaan xadiidka imaamu maalik fii muwata'ihi uu ku soo saaray abu daawuud iyo nasaa'i ibni maajah imaam axmed bay soo saareen xadiid saxiixana ah xadiidu cubaadat bni saamit
يعني النبي وحوليه عليه الصلاة والسلام 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. حديث كافيري وحوليه هي وشن صلاة با إلهي أدومديسا أو كواجبيي هبيني مالين إني لي مادان شنتا صلاة بنا لكو واجبي شنتا صلاة قفكي حفظيه كان له عند الله عهد ألا أكتي وحكوليه بلن وما بلنك أن يدخله الجنة إنه جنة قيليه الله بلن قاضي مركا صلاة حفظ السوء ومن لم يحافظ عليهن شنت صلاة قفك آنا إلى لنن أون حفظنين لم يكن له عهد عند الله لم يكن له عند الله عهد إلهي أكتب بلن أو جنة كقلياهي مله بلن إلهي أو قاضي جنة لو قلنا إياهي مجيرو بلن لو قاضي لما أركو مركا لكن محوياهي إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة بلن مجرته لكن مشي هذا إلهي بخوص ما نسا يدونست الربي هذا دونه الله عذابيا أو صلاة أو كتجيب أو عذابي هذا دونه الله سبحانه وتعالى جنة ذي سبوا قلنا إياه تاسي ودلي شنيا مركب حيليهن قفك صلاة أنا حفظن قفك صلاة كتجي بعد عكر صلاة كتجي هل صلاة لا بس صلاة تكاسل وكتجي عهدي بلن أو جنة إلهي كوجر ما هيستئه لكن وحو كجرا إلهي مشي أذي صادو دون وعذابه هدو دوننا وأودين يا بيلي إن للدلين وحي أدلي شنيا إن للدلي كريم مركب حيلين قف إلهي تحت مشيئته كجراهي وكافر لما به كرو وكفري لما أورن كربيلي إن للدلي كريم وحي أدلي شنيا حديث كإسجنة بخاري مسلم بأسو صارين أو النبي قال أوليه لا عبد الله بن مسعود حديث كيسي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث كاس أي وحيليه النبي قال وحو يرقف مسلم ديقي حلال معها قف كاسو الله أقري شهادة ذي سقري وحدانية الله لا إله إلا الله قري نبي الله محمد رسالة أقري إلا صدح الرماد مويه صدح الرماد بديقي سكوب بنانانية وحكم إذا بولي الثيب الزاني نك نكاح انت صومري أما قبل النكاح صومرتي دبدا يتزين يستي كاسو كلا ديقي سوا بناية ولا دليا والنفس بالنفس قف دلي وكلا بادوي والتارك لدينه المفارق للجماعة قفك دينتي كبحي الردوبي جماعة المسلمين كبحي إسجنه وحويان ولا دليا قتل قاب بناية بولي مركز وحيليهن فلم يذكر الصلاة صلاة ما أونا شيئين صدح ذا أنبو النبي الشيئين لكن صلاتكم مدر رسولك فدل على أن تركها غير موجب للقتل كتجست إذا لقتها صلاة إن يسن دل كينين أي أرنتاسين تسي سابيلين أحاديث بركة كفر المام يسو وهدايا أنا كسو هذا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث أن المام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة أن بهيني وحي أجد جوابان إليه كفر إيا شرك قال الشيء وكفر دون كفر معها كفر مخرج عن الملة هاي والشرك أنا أكبر أهينه كفر أصغر بالي هذا كي قال لماذا أها وقفك الدين كجب حيي معها أي إليه معها بإليه يعني ليس الكفر المخرج من الملة قفك صاحب كيس الدين كسارة كفر كسارة كان معها محيي لي نصوص وحاجر تلمام يسو كفر تلمام يسو هذا أنا كفر أهين وحلم ذا حديث عبد الله بن مسعود وبخاري مسلم بإسو صارين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قفك مسلم كعيدي سل عايو قف مسلم بعض عيدي عيدا قفك عيدا وفاسق نموي وفسوق دل كيسة أدشنا وكفر بالير مركو قفك ولا ديلو لو ما قالوا قفك مركو ديلو هذوسن اسقوا استحلال سميسنين وسحلاشن وديق وإي بنايه وسن أورنين
laakiin wuxuu noqonayaa qof muslima oo dambi kabiira galay marka waa dambi kabiira bay leeyihiin kufriga looma jeedo kii diinta ka saarayay waxa la mid ah bay leeyahay xadiidka imaam muslim fi saxiix ku sugan xadiith abi hurayra nabigana wuxuu leeyahay اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت لبا خصلو لبا الرمود oo umadayda dhexdeeda ku sugan oo labaduba gaalnimo ay tahay lafdiga kufriga la siiyo labadaas waa kuwee labada arrimood oo qofka kufriga lagu idlaaqay waxa weeye الطعن في النسب qofka ay nasabkiisa wax ka sheegto yaani reer hebel baa tahay waa liiday nasabkiisa nasab dhiman baa tahay wax la mid ah hadaa tiraahdo طعن في النسب علينا نسب كو ادك عيدو نبينا كفر بو كتلمام اي النياحه على الميت تطبق قرابدادي با دمتي markaasa ku kor ooyday niyaxadana waa qaylada waa meydka oo maaratay hoogayay iyo baabacay iyo waa waray la yiraahdo oo dhabanada la garaaco oo dharka la jeexjeexo oo waxa la yiraahdaa niyaxada loo yaqaan laakiin inuu qofka markuu ahal ka dhinto ina murugooto ilaa inay ka timaado adoon qaylinin ka niyaxa lama yiraahdo waa raxma ilaahay qalbiga qulubta adoomada u dhaxdeeda yeelay waduu naxariisanayso qofka marka waxay leeyihiin nasabka qofaad cayday iyo meed loo maaragtay loo ooyay oo niyaxa lagu sameeyay baa nabiga kufri ku tilmaamay makii diinta looga baxayay ba maya waa kufrin duuna kufrina la yiraahdaa kii mukhrij aan ilmilla aha ma aha waa dambi kabiiraha weyn weeyaan aqwaasha saddexda ah ayay culimadu sheegaan laakiin sheekhu iyo ayma badan waxay rajaxaan qowlka koobaad ayay rajaxaan oo ah qofka salaada ka tagaahi asaga oo qirsan inay waajib ku tahay hal salaad ka tagaa in uu ku kufrinayo ayeen bay maaragtay culimadu ay rajaxayaan weeyaan laakiin qofka ay yaani culimada qowlkaas la rajaxay laftiisa markuu sheekh maartay ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi yaani kitabkiisa sharh al-mumti'a markuu ka waramayo wuxuu leeyahay yaani dadkaas waxa loo jeedaa oo waa gaal leeyahay marka qofka hal ama laba ka tagay ma aha waa qofka muslimna sheeganayo waligiina aanan tukanaynin kaas weeyaan buu oranay ibn Uthaymin markuu aqwaashi culimada ka hadlay ma ku kufrinaya mise kuma kufrinaya markuu keeno ayuu leeyahay walladhi yadhharu min al-adilla hadalka daliilka ka muuqanayaa annahu la yakfuru ma gaaloobay qofka hal salaad ama laba ka tagay kasal ama tahaawun uga tagay ma ku kufrinayo illa bi tarki salati daa'iman salaada inuu wali ka tago ma ahane qof muslimna ana haydahay ومع ذلك لا يصلي عمري أن ما سجد لله إلهي أنا أسجود إسلامنا مديس وإسلامنا منعاء كاسو شيخ كهذا مركاسو حويري فإن كان يصلي فرضا أو فرضين هذا هل فرض كذا أما لا فرض أو تكنا يا أو من كذا صلاة أو مركة جاية مرنا أو تكنا ياه فإنه لا يكفر ما قالوا بيبويري وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة حديث كلفتي سأيو دليشنا ياوي مركاسو يقول فهذا ترك صلاة صلاة أو هل أما الله أو لقيت ولا نكري صلاة لقيت قوي لا الصلاة صلاة دي أو دم أو كتج اللي مجيده محايل لأن الأصل بقاء الإسلام أصل كقف كان أولي ما دام شهادتين كي أوقري هل صلاة أما الله صلاة أو كتجي كما كفرنا يه أصلك وحوي إسلام نمديس إنه باقي تاوي فلا نخرجه منه إلا بيقين بأورنا يقين وبأقصار كرنا إسلام نمدا وحله وعد وما نقصار كرنا لكن سكرة وجما صار كرنا ويا مركز ذنب جاس كبيرة ده بحالي هذا صلاة أو لقت تجاهي وذنب أدوين وأدو جدا علماء أدلة يقولوا ماشي لما ارتوادو جدا ووقف مسلم بامس وقال له أمور سيئة هوي موجودة سيد الراجح أنا لفظك كفر ولا صيني لفظك كفر ولا صيني يا كافر ويا لليه أما كي مخرج عن الملة هل فسره سيد الإمام أحمد أو كتجي أما سيد الإمام الشافعي أي ماذا كلا كتجين كفر دون كفر هل فسره لفظك كفر وقاذني ويا مركب مد الله بعد كبيرة الله بعد مسلمكم إيش نوجش شيء وتاويا كان صدحات وحوي مسلم بلا طهر له بتعمد
qofaa wuxuu tukaday salaad ayuu tukanaya bigayri tahaara isagoo aan daahir ahayn ayuu tukanaya ma weyse qabo waana og yahay waa mutacamad waa inuusan weyse qabin oo og yahay markaasuu allahu akbar leeya tukanaya waa talaacub soo maaha waa ku diinka ku ciyaaraya waxaana tusaya arrintaasna xadiidka bukhaari iyo muslim oo abu hurayrana nabiga uu ka wariyey nabigeenna muxuu yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdathaa xataa yatawadda midkiin salaadii ilaahay aqbali maayo haddii uu weysadu ka jabto oo xadath uu la yimaado uu ka yimaado weysada hadday ka jabtaahay isagoon weyse qabin salaadiisa ilaahay aqbali maayo xataa yatawadda ilaa uu ka weysaysto weeyaan salaadaa marka yani marka la leeyahay salaatu axadikum la yidhi waxay kulminaysaa faradkii salaada waajibka ahayd ee shantii maktuubada ahayd waxay kulminaysaa tii sunnada ahayd xataa salaatu ljanaaza in loo weysaystay ku tusinaysaa marka qofka salaada in uu asagoona weyse qabin ou tukadaa asagoo og waa dembi weyn oo dunuubta kabiirada ah ka mid ah wey inuu qofka inuu ku baraarugo la rabo wey dunuubta kabiirada ee culammada ku darayaan wey waxaa la mid midka afraad waxa weeye waa asalaatu qabla dukhuuli lwaqti ayadoo aanan waqtigii la gaarin salaadii ayuu qofku tukanaya salaaddu waqti bay leedahay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan waqti mu'aqat bay leedahay fi suurati الnisaa faida اطma'nantum faaqiimu الsalaa ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waqti la waqtiyeeyey bay leedahay fajarka waqti buu soo galaa waqti buu dhammaadaa duhurka waqti buu soo galaa waqti buu dhammaadaa casarka sidoo kale maqribka sidoo kale cishii waqtigiisa waqti aan ahayn ayuu yidhi waa tukanayaa hadduu yidhaahdo waa tukanayaa waa istihzaa biddiin waay diinka oo lagu jeesjeeso weeyaan salaaddii oo la gaarin ayuu leeyahay yacni maaragtay waan tukanayaa buu leeyahay waciid shadiida baa marka ku soo arooray waxay noqonaysaa qofkaasoo kaleeto qofka salaada dayaco oo kale waaya fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu الsalaa waاtabacuu shahwaati waa nin shahwadiisa iska raacay barqadiibuu duhuran tukanaa leeyahay barqadiibuu jooga 4 saac subaxnimo salaada duhuradaan tukana war waqtigeedii ma gelin maya ma jirto hadda waqtigaasaan tukanayaa buu leeyahay ama waqtigii casarkiiba wuxuu tukanayaa maaragtay waqtigii duhurka ayuu oo weli aan casar la gaarin buu casar soo hormarsanaya tukanaya ama dib uga dhigi karaa duhurka intuu iska dhaafo uu leeyahay ayadoo waqtigii qoraxda dhicda rabto hadda waxaan tukanayaa salaadii duhurka uu qasad u sameynaya marka kaana wuxuu soo gelayaa fawaylu lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun culammada kuwaas ayay ku daraan wey kuwaasaa lagu darayaa weeyaan dembigaasna waa dembi weyn oo dunuubta kabiirada ka mid ah kan shanaad waxa weeye asalaatu ilaa hayri alqibla meeshaan qiblada meelaan ahayn inuu qofku u tukado jihadii qiblada waa ogyahay wuuna yaqaanay wuu ka jeestay markaasoo meel kale u jeestay kaana dembi kabiiraa buu la yimid oo toobo u baahan weeyaan toobay u baahan tahay maxaa yeelay ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra meel alla meeshaad joogtaan qiblada jihadeeda usoo jeesta baa layidhi walidaalika waxaa la yidhaha qofkii kacbada arkaayo oo u jeedi kara inuu iyada qaabilo baa la rabaa dadka aanan kacbada meesheeda joogin jihadeeda inay qaabilaan unbaa la rabaa jihada kacbada kaa jirta inaad qaabishid baa la doonayaa weeyaan maxaa yeelay qiblada waxaa la yidhaahdaa يعني وحيالها لو قلت يكره استقبال القبلة ومن شروط الصلاة ودكتين شروط الصلاة كم تاعي إن قبلة لا قابله سو ما جدي سدح شرطين بالو قلت يكره سدح الرماد بالو قلت يكره قفك وعاجز صلاة وذي واي سبتالو كجرا ما دقاقي كره حق مالا نهي بالو جدي اسمه قدين كره ماشي ومارت وجيدو أي وتكنا يقفك سكر هل جديو هل وضو هل وروريجي لديه مايو maadaama uusan dhaqaaqi karaynin wax qibladiina uusan u jeedinin meel kale ku jiraa liajli cudurka dartiisna ay tahay waa loo ogolaya maxaa yeelay ilaahay fattaqullaha ma statactum ilaahay leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum axaadiistan nabigana sidaas baa ka mid a midka labaad waa cabsida darteed cadow baa ku cayrsanaya dagaal baa ku jirta dab iyo xariiq baa kugu soo kacayda salaada waqtigeedii la joogo daad baa kugu yimid oo roob baa inta yimid daadkiiba inuu ku qaado aad ka baqday xaggaa usii jeedaa uma jeesan kartid meeshii daadka iyo ka imaanaya cadowga meeshaadaa u tukanaysaa ayadana waa midda labaad oo lagu ogol yahay weeye midda saddexaad waa salaatu naafila fi safar
markuu qofka safar ku jiro sunnada markuu tukanayo ama gaadiid ha saarnaado ama isaaranin hadduu gaadiid saaran yahay xaytu tawajjahtu raahilatuhu meesha rikaabkiisa u jeediyo gaadiidkiisa ayuu u tukanayaa halkaas ayaa la rabaa weeyaan marka qiblada saddexda arimood baa looga maaragtay qofka loo ogolay salaatul khawfka iyo qofka musaafirka ah oo naafiladii sunnadii ah oo faradka ahayn qiblada inuu ka jeesan karo iyo qofka mariidka ah oo jiran ayaa la yiraahdaa weeyaan midda ugu dambayso waxa weeye oo midda lixaad kabiirada ugu dambayso waa salaada oo bigayri faatixati alkitaab lagu tukado alqur'aani almutaakkid oo leeyahay weeyaan marka faatixadii la'aanteed faatixadii suuratul faatixa taqaana waad garani adoo yaqaano ayaad maxaad samaynaysaa faatixa ma akhrinaysid waxa leedahay qul huwallahu iskaga tukanaya bas waa ku tukatay sax ma aha salaadaadu ma ansaxayso maxaa yeelay يعني حديث كبخاري مسلم بكسقنا حديث عبادة بن الصامت نبي محوير عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة أمجر أنصح ميسو صلاة أما أنصح هذا منك قديسو وحان فاتحة أحين فاتحة الكتاب وإنه فاتحة أخرية هدي أو يقانو وكو خسبية هذا ولكع وقتك أسقو أجن لأمري أو نصوص تاس أي أمرتي يري حدنا ما القرآن كنت أنا فاتحة مرة أو يرادو وذنب كبيره متعمد بوسمي وقصد أرنتان وذنب وين أمرك النبي خلافه عليه الصلاة والسلام وياه النبي عليه الصلاة والسلام أي خلافه مركا ذنب كبيره وكل عيا حدي أوسن أقولين مركا فاتحة ما يقام وهذا بصو إسلام وأن عجمية وحويه أنت اللي جبر أيه وفاتحة أو كبرنا أيه حدي قرآن كسهلا أو يقانه قرآن كايرك وكتو كنايا ولو أقوليا يسمى فاتحة آخرين قرآن كاس أيو يركا أنت دورك آيات وبرتو وكتو كنايا حدوسا قرآن ودن أقونين فاتحة دينا هذا لبريو محوسة مينايا ذكر إلهي سبحان الله الحمد لله الله أكبر واسكتو كنايا تذكيرك أنت قرآن كلا جبريو ولو أقوليا هويا مركب مسألة ذا سنة أيضاً إنتاس أيو مارتي علماء كشيغان ويا لحدا كبيرة أيو مسلك ماشي نوغو شيغي وحوير يمين غموس من الكبائر وحكم ذا يمين دار أو غموس صاحب كذا نار دحجلسي إثم يدم بجلسه تارك وتارك متكتجيبا كم ذا لصلاة صلاة سكتجي مصل صلاة مصل متكني صلاة بلا طهر طهارة الآن ويسقبض الآن له لما صلاه وتكني ينا أو كنت كذي ويسقبض الآن كنت كذي وذنب كبيرة ويا ولما بتعمد يعني بتعمد بسبب تعمد لذلك أرنكاس قصد وقصد يدرت إنه أسميه ولا كع أسميه ويا مصل وصلاة مصل مت كذا سلادي بغير الوقت وقت يوحنا حين أيضا وقت يذي لجارن أي صلاة تكنا يا أما وقت يذي ولا ضافي أي عمدا تكنا يا أنت تيهر دب دكتويا أو غير قبلة أما صلاة مصل مت كنية سلاديو إلى غير قبلة ما لا نهين أو تكنية مصل مد كلام وحول لحاذا وقدام بيو مصل وصلاة مصل مت كنية سلادي بلا قرآنه قرآن كيسي المتأكد إلا أتكاء وحق لها سيدة فاتحة متأكد كأهد لأنت إذا كم كنت كنية ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم